السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan asxaabta ku xiran kanaalka YouTube soo dhawaada. Horey ma isku weydiisay su'aashan maxay dadka ku necab yihiin haddii ay dadku necab yihiin ma waxay ka dhigan tahay inaad tahay qof xun. Muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa 8 arrimood ay dadka kugu necab yihiin balse intaynan u gudagelin muuqaalkeena maanta fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada fikirkaaga noogu reeb qaybta commentiga. Qodobka koowaad waxay u haystaan inaadan u qalmin heerka aad joogto mana eegayaan shaqada adag iyo dhibka aad meeshan kusoo gaartay kaliya waxay ku arkaan inaadan u qalmin heerka aad joogto. Qodobka labaad ma rabaan inaad ka badiso noloshana waxay u arkaan inay tahay yaa caansan yaa taajirsan yaa qurxoon yaa saaxiibo badan yaa shaqo fiican mar walibana waxay ka baqaan inaad ka hormarto ood ka dheerayso iyagana loo arka fashil mar waliba aad ka dheerayso qaybka dadka ku nacbi wuu sii siyaadaa. Qodobka saddexaad kuma faraxsano qayb noloshooda ka mid ah way fashilmeen waxayna rabaan in qof kale uu la dareemo fashilka. Qodobka afraad waxaad leedahay dabeecad ay dadka badi necab yihiin sida baqiilnimo isla weyni kibir been badan raabagoysnimo iyo wixii lamid ah la halmaala dabeecadaas waxay ku sababi doonaan inay dadka badi ku nacaan. Qodobka shanaad waxay rabaan inay attention helaan ugu badan ee cabsida ku abuuro waa aamusnaan inay qof jariyiin waxay dareemaan kolkii aad hadalkooda maqasho. Qodobka lixaad isfahan la'aan baa jira iyagoo dadka aqoon ama arkinba abid ka nacbaysta marka la weydiiyeyna qofkaas wuxuu dhahaa kaliya waan iska nacbay. Qodobka toddobaad ma haystaan wax kaloo wanaagsan ay noloshooda qabtaan ay maarin waayeen dhibkooda waxayna ka baqaan isbeddel laga yaabay inay adiga shaqsiyan ku nacbeen balse ay sidaas ka yihiin. Qodobka siddeedaad waa dad masar iyo xaasidnimo badan waxay rajeeyaan inaad soo dhacdo sababtoo ah rabaan inaad weyso waxaad adiga haysato balse aysan iyaga haysan noloshana waxay ka arkaan dhanka xun waxay u arkaan haddii aad saaxiibo iyo taageero weydo in ay iyaga qayb helayaan. Waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday haddii uu ku anfacay like saar lana wadaag asxaabtaada fikirkaaga noogu reeb qaybta commentiga.